أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أدونكن هي قيمها وكلية الله سبحانه وتعالى أكتس أدونكن ما أنت تشوقنا وواحد بني آدم كورد من متزاحم كوكوية وواحد ضبيس كوهايو الله مايو لك لبوبيو لك للريحانيو أدونكن ما أنت تشوقا وكان dadka intiisa badan hadduu soo galo farxayo xoolo ku soo galaan ama uu qofku kharash helo yafrax hadduu waayo caroonayo dudayo ama uu qadarka maagayo adduunkan maanta joogay mid qofku markuu waayo wax ku colaadinayo ku dagaalamayo helistiisa uu cid ku xidhiidhinayo ku soo dhawaynayo qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wax walba siduu u qiimeeyey intuu adduunkani qiimo agtiisa alle ka leeyahay subxaanahu wa tacaala intee ayaa loo baahan yahay qofka muslimkii inuu kala xidhiidho dunidatan aynu markaasi ku kor noolahay waa dhaldhalaal yar oo dhammaanaya إلهي بوحلي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وحن كي لي با إلهي لي دولك وحا كرسارا أو الزينة وحا لغو قرحية محال لغو قرحية لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وحن أدى الدلالية با إلهي لي أدونك كد إن أندتك كو اتحامه inaan eego dadka kan iyo mowqifka ay adduunka iska taagaan dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala meel biriya oo la tirtiro adduunku wuu yaryi waa qaliil baa ilaahay qilladu xaggay kaga jirtaa yani markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimaynayaa waxaa la dhinac dhigayaa waxa ay dadku ka dooranayaan bal tu'thiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayrun wa abqa waxaa la dhinac dhigayaa waa aakhiro adduunka noloshiisaad dooranaysaan baa ilaahay leeyahy bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira adduunka waxaa la dhinac dhigaya marka koowaad ee yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro waayo labada inaad mid doorato weeyaan inuu qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto oo adduunkan uu arko daaru ibtilaa inay tahay iyo inuu adduunka bidhbidhkiisa iyo ku raaxaysigiisa jeclaysto oo aakhiro ilaabo aanu isku mashquulin waa labada mid idan adduunku waa qaliil wuxuu qaliil ku yahay jannada waxa yaallaa badan jannada ilaahay wuxuu leeyahay waa nicmo tiro badan waa beero waa jannooyin waa webiyaal waa kullu shay lagu naciimaysto وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحول الله بني آدم كوبا هذا ويتعالى إذا أدونك يريي وحيريي مركا آخر الله أيضا سيدا أوجد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع أدونك آخرة مركا الله دين عديقا النبي قولي صلوات الله والسلام عليه وحول لمد يهي نم فرت بيا قليي بضا هداد فرت قليسو حاكاسو راعية يعني بضا بيها هداد فرت قليسو انتين لك بكسو راعيس
يعني gacantaadu inay qoydo uma ku soo raacaya intee lag baa haraysa badiyo dhan baa haraysa haddii adduun iyo aakhira la isdhinac dhigo min hayth al-kathra tira badni marka laga eegayo haddii la isdhinac dhigo waxay u dhigmaan baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala in ay tahay waxaa yar waxa kaa soo raacaya aakhira nimcadeeduna inay tahay tu tiro badan sidaa awgeed ayaa waxay leenahay adduunku wuu yaryahay marka loo eego aakhira nimcadeeda adduunku bayn leenahay waa faani wuu dhammaanaya aakhira se way waaraysaa oo adduunka iyo waxa nimco yaalloo dhan waa laba miduun inaad adigu zuusho oo ka tagtid oo geeriyo ku dayn weydo iyo inuu isagu kaa tago intaad ururiso in aafo kale ku dhacdo dagaal dhaco balaayo kala dhacdo mashkilada dhacdo khasaare dhaco markabkaad raratay degto dayradaad wax saartay degto si kale inaad u khasaarto idan inuu isagu kaa tago iyo inaad adigu ka tagto labada miduun baad ku jirtaa ama aakhiro ukuluhaa daa'im wadilluhaa baa ilahay waxaa lagu cunayaa waa daa'im isma bedelayso hooskeeda iyo hadhkeeda iyo nimcadeedoo dhammi waa joogto aafa kuma dhacayso waa daaru salaam daarta nabadgelyada weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyay maa cindakum yanfad waxa agtiina yaalloo dhammi waa dhammaanayaa baa ilaahay leeyay wamaa cinda allaahi baaq ilaahay se agtiisa waxa yaallaa ma dhammaadaan bale adduunka waad ururinaysaa laakiin intaad intifaacsanaysaa baaya waa laga yaabaa inaad malaayiin soo ururiso laakiin adiga maxaa kuu arsaaqi aad ka leeday waxaad aakhira isaga sii horu marisay waxaad cuntay waxaad huwatay inahaas baad adigu ku leeday inta kale dad kale unbaa dhaxlaya ama u hadhaya adiga risqaaga kama mid aha inta kale dad kale waad soo kasbaday oo waad soo ururisuun laakiin risqigaagii maaha cid kalaa u hadhaysa sida daraaddeed waabay kula degdeg badantay sida ay kuu dhaafayso aakhira marka la taga baa ilaahay wuxuu leeyahy maa labisuu hayra saaca marka la weydiiyo waxaabaad moodaa dunidii la sheegayeyba saacad in leeg inaan la soo joogin saacad intay leeg waa wakti aad u yar yani waxaa la tilmaamayaa sida ay u dhammaan doonto kaannahum yawma yarawnaha lam yalbatuu ilaa cashiyatan aw duxaaha aakhire markayse soo taagaan baa ilaahay leeyahy qiyaamuhu dhaco waxay u ekaanayaan inaanay gelin hore ama gelin dambe oo wixii ay dunida soo joogeen oo dhammayna intaas yaraanteedii iyo sida zamankeedii u degdegay qofka maanta 90 jira way la yartay intii uu soo maray maalmuun bay la tahay dhadhan badan ma leh qofka 20 soo jirayna maalmuun bay la tahay qofka 40 joogana maalmuun bay la tahay idan waa wax yar qofna ismale waad ka dheregtay ama in wax laga qaadaba ka qaadan sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka in badan ku tilmaamaya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلهي وحط الماما يا سبحانه وتعالى أدون كان لتشوقه واسكا اللعب إيا اللهو باللي دال عبورات أما اللهو ددوا وينيكم داشان وحوغا دلدلالة إن فانا إن أرورسية إيا عروريا أولاديا وحلا النوع وحودا مركا لاسكو دربا إلى هيدي محلمدي كمثل غيث أعجب الكفار نبات وحلمدي هبال يدي الروب دا أي وبيرليدا فرحت قليي روبكو مركو دوه دوغو صوبحو انتا إلا قو جوغا يعني بالله با انتانو جوغين بالضبايل باكو دعضا وبيه با يرادا oo dib u engaga oo dhulkii quruxda badanaa dhammaantii wuxuu noqdaa maxay meel cidlo lama dagaab u ekaada saadaradeed baa ilaahay inama mathalu alhayati dunya kama in anzalnahu min as-samaa'i fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah adunka joogtaan oo dhan marka la isku daro baa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu la mid yahay bihi cirka ka soo daay ee dhulka ku darsamay ee waxa dadku cunaa ka soo baxeen ee dabeetana markiiba intuu engegay xaabada iyo xashashka iyo xashiiska noqday
aayaad tiro badan baa ilaahay masaladaa ku tilmaamaya. واضرب مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أما إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إلهي آيات قرآن تربضا نبوك الشيغية. كل هذه الآيات وحي شيغية أدون كان إيا يرانتيس إيا سيدا أمركي بكور دافيو إيا آنو أهين وحسير راغية